annagaa u takanoobayna annagaa godadka ku jiraan ugu galayna qof xun oo waddankiisii jawaajiiska ah oo waddankiisii bariis ka waayey oo laga yaabo inuu harqaanla ka ahaa tan noogu talin mayo tan annagaa iska leh annagaa u harayna annagaa u dhimanayna annagaa u takanoobayna annagaa u dhaawacmayna inta inaga dhimatayna waa shahiideen inta inaga dhaawacantayna ilaahay ha u boogadhayo dalkooday u dhaawacmeen yaha ururka dhammaantood qof walba meeqaamkiisaan ku salaamayaa ururkaana maanta soo booqday buuraha waa la wada joogaa waana la kala joogaayo rag qayba dhinac uu ka diriraya birmadkii baan maanta la joogaa ciidanka birmadka codib waxa weeye nin walba meeshiisa barbarkay ka baxdaa waa bakeena laqaynta la sheegi jiray weeye waxa weeye maxaa kaama ciidana galay iyo ku dayoobay maxaa kaama ciidanadana ku dayoobay oo kala jaata miiraha ku gurgurtay beerka oo kala baxay ragaygii waa intaani waa noocaas weeye nin walba beerku ku gurguranaya kala jaata miiraha baa la dul maraya ciidanka lagala baxaya kaakii korkoodiyo dushooda ku googaysay qoraxda u taagnaayeen waxayna u taagan yihiin oo dhiigga u shubayaan waa ummadda reer Puntland weeye waxa weeye intaasoo geesiya iyo inta inaga dhaawaca ilaahay inoo caafiyo inta inaga dhimatayna ilaahay ha u naxariisto intaani iyo ragga reer Puntland oo ciidankaahi ay nool yihiin gabar walba iyo wiil walba iyo oday walba iyo hooyo walba sharaf ku seexanayaan Puntland iyo amni annagaa u takanoobayna annagaa godadka ku jiraan ugu galayna qof xun oo waddankiisii jawaajiiska ah oo waddankiisii bariis ka waayey oo laga yaabo inuu harqaanla ka ahaa tan noogu talin mayo tan annagaa iska leh annagaa u harayna annagaa u dhimanayna annagaa u takanoobayna annagaa u dhaawacmayna inta inaga dhimatayna waa shahiideen inta inaga dhaawacantayna ilaahay ha u boogadhayo dalkooday u dhaawacmeen xaniyahooday u shiileen dalkan xinjiro dhiiga Puntland ilaa iyo 88 xaniyo rag bay dugsanaysay oo xinjiraa loo rag baa u godgalayay boqolayaal xinjiro weeye Puntland ta quruxda badan oo 1500 oo xeebta oo garanaysa mayl oo nabadda lagu marayo ciyaar kuga iman kaamirooyinka inta badan ma jeclina ka soo muuqdo laakiin maanta ciidankaygii iyo ragaygii baan la joogaayo waa dhiirigelinayaa nin walba dagaalka meesha kaga jiro waa ku bogaadinay hadday noqoto dhalinyarada dhiigga shubaysa hadday noqoto dhalinyarada dhakhaatiirta ah hadday noqoto dhakhaatiirta ragga qalaysa hadday noqoto hooyooyinka waxa weeye saadka soo dhiibaya hadday noqoto gabdhaha dalka dibadiisa dahabkooda furaya qolo walba meeshoodaan ku salaamaynaa waana uga mahadcelinaynaa waana u ognahay reer Puntland isku duubni baan rajaynaya assalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر الله اكبر waxaan qorraxda u taaganaa dalkeena ummadda ku soo disay xataaka oo ka timid dalka ajnabiga ku soo inaan dalkeena corona meeshay galaan inaan ka soo qabanno diyaan mawti ninkii ku dhintaa waa hurtan ninkii ku dhinta maanta dagaalka ku dhinta waa hurtan waayo nin dalka ay ku soo duulay oo dhibaato ka sameynaya haddii ka hortagin hadda waxaad inuu ku weydbaata waxa inoo ballana oo isku daarsanay in alla nimankaas al-shabaabka iyo daacish ma alla meeshay galaan inaan qolno guriyada aan ka saarno hormayno ballamata inoo ballamata saasa inoo ballana saasa inoo ballaxad yaamine assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الرحمن الرحيم شعب دل iyo dad meel kasta ay joogaan waxa ku salaamay salaada islaamka balan waxaan kaga qaadnay shacabka say noogu taagan yihiin oo dhiigooda noogu shubayaan oo noogu garab taagan yihiin sida ugu hiilino oo dalka wuxuu ku soo duulay qabanno 20 horin ina uga tilaabsano madaxweynaha Puntland balan waxa uga qaadanaa meel kasta ay kalaan ina uga dabagalno waa maalin weyn waa maalin farxadeed waxaana soo booqday waankeena reer Puntland waankeena Soomaaliyeed farxan garaac difaaca iyo furmaha jiida hore ee buraleyda caalamiskaad waxa u taaganahay halkaas dalkeena iyo dadkeena soo difaacay waa inta waanka iyo saraakiisha ugu horeysay sheegeen waxaan ogaataa qof walba reer Puntland taariikhda cusub doonta dagaalkaas aan kula jirno khawaarij iyo dadka ajaanibta ah dalkooda diinta ay dalkooda kaga soo tageen oo rabaan inay Puntland ay anaga diin kula dagaalaan